waa qiso yar oo kooban haddana xambaarsan xigmad aad u ballaaran. Nin ayaa booqday meel lagu xanaaneeyo maroodiyaal. Waxaa indhihiisu ay qabteen oo uu aad ula yaabay lana amakaagay maroodiyaashaasi oo ah xayawaano aad u xoog badan oo aan xayndaab xiran ku jirin, balse xarig yar lugta uga xiran yahay, isla markaana aan isku dayaynin in ay baxsadaan. Waa wax markhaatimo doonto ah oo cad in maroodiyaashaasi ay awoodaan in ay baxsadaan oo ay xarigga goostaan. Xariggaas yar ma celin karo awoodda maroodiga, balse sabab ayaa jirta ku sababtay in ay baxsan waayaan. Waxa uu arkay mid ka mid a shaqaalaha goobta. Waxa uu weydiiyey sababta xayawaanadani maroodiyaasha ah ay meeshooda u taagan yihiin oo aysan u sameyneynin isku day in ay baxsadaan ah. Ninkii ayaa yidhi, maroodiyaashani markii ay aadka u yaraayeen waxaan u isticmaali jirnay isla xariggan cabirkan yar. Da ahaan marka loo eego xilligaasi waxa ay ahaayeen kuwo ay ku habboon tahay in xariggaasi lagu hayo. Waxa ay awooddoodu ka yareed xariggaasi awooddiisa. Hadda oo ay weynaadeen weli waxaan u isticmaalnaa isla xariggii. Waxa ay maskaxdoodu la qabsatay in ay rumaystaan in aysan baxsan karin. Waxa ay moodaan in weli xariggaani celin karo, sidaa darteed iskuma dayayaan in ay baxsadaan oo ay xor noqdaan. Ninkii waxa ay la noqotay la yaab in xayawaanadani maroodiyaasha ah quwadda badan aysan ka baxsanin xariggan yar, maxaa yeelay waxa ay aamineen in aysan samayn karin oo aysan awoodin, meeshooda lehna ay iska joogaan. Sida maroodiyaashaas oo kale, imise inaga mid ah ayaa ku xiran xariggaas yar oo aaminsan in aysan waxba qabsan karin, keliya ayaga oo u sababeynaya in ay ku fashilmeen isku day ay hadda ka hor sameeyeen. In la guuldareysto waa qayb ka mid a nolosha. Ma ahan in aan isdhiibno, balse waa in aan u dagaalanno sidii aan nolosha guul uga gaari lahayn. Haddii aad horay u fashilantay, isku day mar kale in aad samayso, waad guuleysanaysaa. Ha aaminin guuldaradii hore adigoo isleh mar kale ayaad guuldareysan doontaa. Wax walba oo lagu celceliyo waxaa laga gaaraa guul.